conversation wadahadal conversation wadahadal lesson 19 cashirka 19aad lesson 19 cashirka 19aad okay halkan waxaa wada hadlayo boy and wiil iyo gaal gabar ayaa wada hadlayo wayna isku leesan doonaan marka aan aragna waxay dhahaan okay boy ayaa hadalka ku hormaray wuxuu leeyahay my wonderful sister walaashayda cajiibka aheeday my wonderful sister walaashayda cajiibka aheeday do you know ma garanaysaa who I am qofkaan ahay do you know ma garanaysaa who I am qofkaan ahay okay gaal gabadhi waxay leedahay you are waxaa tahay the son wiilka of the bald headed man ee ninkii bidaarti lahaa uu dhalay you are waxaa tahay the son wiilka of the bald headed man ninkii bidaarta madaxa ku lahaa ama bidaarta lahaa wiilkuu dhalay ayaa tahay way caynaysaa yacni hal mar hadday dhahdabo bald headed man wiilkiisaa tahay hadday dhahda yacni waxaa weeyaan way caynaysaa hadal xun ay dhahaysaa okay wuxuu leeyahay you better stop slandering me you better waxaa ku wanaagsan stop inaad joojisid slandering me afligaadada ay afligaadeynaysid ayuu dhahay wuu ka yara xanaaqay hadalkeeda macnaha wuxuu leeyahay you better stop waxaa ku wanaagsan inaad joojisid slandering me afligaadada ay igu wadid inaad joojisid okay gaal waxay leedahay I will not stop ma joojinaayi slandering you inaan ku aflagaadeysto until ilaa iyo you stop aa ka joojisid drooling dabadhareeritaanka aa ka dabadhareeraysid after me ee aniga yacni waxay leedahay gabadha wiilkan wuu iga dabadhareerayaa oo mar walba aanu iraadsadaa camal marka waan aflagaadeyni maalin kasto suu iiga haroo kaleeto so waxay leedahay gaal I will not stop ma joojinaayi slandering you inaan ku aflagaadeysto and until ilaa iyo you aad adiga stop aa ka joojisid drooling after me ka dabadhareerista aa iga dabadhareeraysid okay boy wiilka wuxuu dhahay first of all ugu horeen ama marka horeeto who conceived you yaa ku ureeyay ayuu dhahay meeshaan hadal kulul ayuu gabadhi u dhahay wuxuu ku tilmaamayaa in oo uur ay leedahay erey conceived waxaa waaye yaa uurka ku yeelay camal yaa ku ureeyay so wuxuu dhahay boy first of all marka hore who conceived you yaa ku ureeyay your belly calooshaada is protruding forward hore ay usoo buuran tahay ama ay usoo kuusan tahay ama ay usoo baxsan tahay wuxuu dhahay first of all marka hore who conceived you yaa ku ureeyay your belly calooshaada is protruding waxay usoo baxsan tahay forward hore yani calool weyn aa leedahay dhanka hore usoo baxsan oo kaleeto okay gaal gabadhi waxay dhahday ayadana kulley markeeda way xanaaqday before ka hore I kick inaanan darbeynin your breast ass dabadaada riixan breast ass waxaa la qof oo daba dhan aan lahayn oo suu u fadhiyey ama kaleeto ha fadhi ha noqdo ama caatinimo ha u geyso waxay doontaa u geyso laasine qof oo daba weyn aanan lahayn misena baag aanan lahayn ayaa la rag ama dumar wuxuu doonaa soo sida darawaliinta oo kaleeto hadda fadhigaa ka batay yacni waxaa waaye dabadooda dhammaan ayaga ku dhex dhuntayba rag daba dhan maba lahanba marka before ka hore ama intaanan I kick aanan darbeynin your breast ass dabadaada riixan waxa riixay lama garanayo go away from me ee iga tag ay dhahda ama iga dheeroow markaas wiilka ayuu soo hadlay wuxuu leeyahay don't try ha isku dayin to deny inaa xaqirtid ama aad qarisid the adultery zinadii you committed aa samaysay yacni waa zinaysta camal uu leeyahay sababtu u dhahayn maxaa waaye marka hore wuxuu dhahay uur ayaa leedahay gabadhi caloosheeda weyn ayuu arkay ka dambena wuxuu leeyahay markii ay dhahday dabada ayaan kaa darbeyni wuxuu leeyahay don't try ha isku dayin to deny inaa qarisid the adultery zinadii you committed aa samaysay okay gaal gabadhi maxay dhahay marka maxay ku jawaabtay I am anigu from waxaan ka soo jeedaa a reputable family qoys sharaf leh from a reputable family qoys oo sharaf leh ayaan ka soo jeedaa you adigu
have to waa inaad stop aad joojisaa being jealous masirka aawadid yacni waad iga masiirsantahay camal waxaa sheegtaa waysay uuraa leedahay iyo zinaa samaysay iyo inta ka baxo waay wax baa wada camal ay leedahay marka waxay leedahay masirka jooji so waxay dhahday I am anigu from waxaan ka soo jeedaa a reputable family qoys sharaf leh you adigu have to waa inaad stop aad joojisaa being jealous masirka